madaxweynaha dawladda Khaatumo Professor Cali Khaliif Galeed ayaa maanta deegaanka Werweri ka dhagax dhigay madaar cusub oo ay yeelan doonto deegaanka Werweri. Madaarkani oo noqon doona mid ay ka haadaan dayuuraduhu ayaa noqonaya madaarkii labaad ee uu yeesho gobolka Cayn, waxaana madaarkaasi loogu magac daray madaxweynaha dawladda Khaatumo Professor Cali Khaliif Galeed International Airport Werweri. Waa ku faraxsanahay airportkan degmada Werweri magaalada Werweri loogu talagalay waaba mid ilaahay siiba diyaariyay wax badan hawl badan oo laga qabanayo dhir badan oo la goynayna kama muuqato meel istiraatiijigana waa ku yaala dhul dhanba aan aagan diyaarada ama airport soo dhaweyn ilaa geeddeer ilaa kala bayd kulli intanay ku fadhido ilaa hurufadhi dhul badan oo laga soo gaari karo iyo ku yaala waana xalala mataanaysiinaya ka buuhood la ku yaala waxaan ugu baaqayaa ummadda reer Khaatumo inay garoonka soo caawiyaan amdina wax laga qabtaan sidii kuwa hore sidii kii buuhood loo kale ay u dhisayeen ee xilka isaga saareen ummadda Khaatumo oo dhan airportku sida anigu igu muuqanayo maaha airport qoys leeyahay airport magaalo leedahay waa international airport waa muhiimad weyn oo dadka deegaanka u soo hoyatay waa guul lama filaan ah Khaatumo inaynu waxa weeye gacmaha iyo lugaha iyo ilkaha bay isugu geyno saas ay noo bal oo deegaanadan oo dhan u noqon karo meeshan airport wanaagsan dhulkan dhul fiican weeye inta aan hadda aan arkayo oo almost hadda uba diyaarsanba in diyaaradaha yaryar iskaga soo deegi karaan haddii la nadiifiyo oo wax laga qabto marka aad baan ugu boorinayaa in ciddii ka qayb qaadan karta gudo iyo dibadba in la sameeyo aanu idin kala qabanaynaa naf iyo maal wixii aanu leenahay waxbaanu idin kala qabanaynaa waan idinku gudub taaganahay anagoo ka nimi meel durugsan inaanu la soo kulanno farxad weyn bay noo tahay aad iyo aad boqolkiiba boqol waa ku faraxsanahay haddii la idmaayo sidaa iyo si ka sii fiican inaynu ku wadno sidoo odayaasha hore sheegeen dhagax dhigga airportka oo noo dhagax dhigayo madaxweyne Cali Khaliif Galeed iyo waftida uu hogaaminayo aanu ku casuunay waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa ummadda meel kasta joogaan deegaanka iyo cid kasta oo khayraadka ka qayb gasha inay ka soo qayb kastaba ahaatee madaarkani ayaa ka qayb noqonaya madaaro fara badan oo gaaraya ilaa 5 oo ka jira deegaanada Sool Saraag iyo Cayn. waa Cabdi Curo Kalsan TV Werweri.